magaalada muqdisho waxaa maanta ka dhacay banaanbax lagaga soo horjeedo sarkaal ka tirsan jabhadda ONLF Cabdikariin Sheekh Muuse Qalbi Dhagax kaasi oo gacanta loo geliyay dhawaan dowladda Itoobiya kadib markii la sheegay in laga soo qabtay magaalada Gaalkacyo oo loo soo wareejiyay Muqdisho. banaanbaxa oo ka dhacay isgoyska Banaadir ee magaalada Muqdisho ayaa dadka isugu yimid waxay codsanayeen in xorriyadiisa loo soo celiyo sarkaalkaasi. xariga Qalbi Dhagax ayay aad uga hadashay saxaafadda Soomaalida iyo baraha bulshadaba. haddaba dadkii banaanbaxaasi maanta ka hadlay waxaa ka mid ah xaaska Cabdikariin Qalbi Dhagax Xamdi Maxamed Cabdi oo ka hadashay dareenkeeda iyo sida ay u maqleen wareejintiisa. waan iska amtay laba bari oo murugaysnayn waan cunadii baan cunay waan iska joognay waan soo tagnay subaxii baasabooradiisa waan la soo tagnay wiilashoo dhan baan wargeliyay waxaan ku yidhi Cabdikariin aanu ila hadlay saasuuna yidhi aan tagno meeshii baanu tagnay baasabooradiisa baan la tagnay sharciga gaadiidkaan la tagnay Cabdikariin Sheekh Muuse oo magaalada Muqdisho ku dhex socday markaanu la tagnay habeenkii markay tahay 2 saac habeenimo ka soo dheelmanay saanu u taagnay annaga daraankanagu wuxuu lahaa maanta Soomaali way midowday marka ayada saa tahay waxaan ugu xigtay Cabdikariin Sheekh Muuse waa la dhiibay. dowladda Soomaaliya ayaan haddaba dhinacooda war rasmi ah wali ka soo saarin dhiibista Cabdikariin Qalbi Dhagax ee lagu wareejiyay dowladda Itoobiya. laakiin toddobaadkii hore ayaa madaxa nabad sugidda ee Soomaaliya Cabdullaahi Maxamed Cali Sambalolshe waxa hadalkan kooban uu ku sheegay in arrintu ay tahay mid xasaasi ah. sarkaalka la sheegay inuu ONLF yahay ee dowladdu wareejisay sida la socotaan ba arrinkaas waa arrin oo xasaasi ah oo ay tahay waqtigeeda iyo goobteeda in looga jawaabo